horta qofka wax laga filanayo qof wax laga filinayna kala jirto mogtahay catoosh waa laga filinaa taas ana waxa idiga haayo sirtasna aniga maxaa la dhahaa ku aamusnaa caawa waxa rabaa in idii sheego horta salaam calaykum horta waa idii salaamaya dhamaantiin banuucan hore ina u gala rabaa catoosh aniga social media waa ka kasi jiray inuu wariye yahay habeenada kamid ah baa waxa ku bartay hotel Jazeera markaan ku bartay Jazeera oon arkay waxaan ku dhahay waa ku salaamay wuxuu la hadlayay qof hada meesha magaciisa inaan ka sheega aan rabin marka dadkaas oo meeshaas uu joogay hotel Jazeera ma waa habeenkii ugu horeysay oo wiilgeena nolosheeda aan taginay ahayd xataa meesha dad badan oo madaxa joogeen banaanka la wada fadhiyay markaas waxaan ku dhahay si qaasan ku baahanahay inaan kula hadlaan rabaa anigana waxaan ka rabay maadaama oo page weyn oo leeyahay oo yahay qof wariye ah waxaan rabay in oo barnaamijka aan watay oo aniga haaf turki ahaan oo taageerada u hay walaalaha turkiga markaas waxaan soo saaray buraanbur oo ah maxay ahayd aan ku amaanayo walaalaha turkiga ordigan aan ku amaanayo barnaamijkaas waxaan rabay pagekiisa inuu ii soo dhiga markaas waxaan ku dhahay walaalo maxaa rabaa inaan kula hadlo markaas uu yiri waayahay gooni inoo bixi gooniya iskuula baxnay maqaayado meesha way badneed meel maqaayad badan waay wax dad badan joogin marka meel gooni aan isla tagnay wallahi oo billahi tallahi inaanu aniga aan hal xaba kalaam been aan ku dareenin catoosh inaana kalaam been aan ku dareenin aniga waxa waaye teedii waan ku fiiriyay waa ku aamis ilaa waxba inuu ii soo dhigay page-kiis kaliya aan ka rabay tiina uu igu adkeeyo wuxuu watay asna dan kale dantii kale hadii oo waaye wuxuu sameeyay marka wuxuu yiri oo iska xaajahay okay marka ana ku dhigi doon amal oo ilahay markaas waxaan caaw ii soo dhig fadlan page-kaaga ii soo dhig in maadaama ay dad badan kugu xiran yihiin si oo igu gaaraan dhahay madaxda dalka ilaa iyo ordigan uu gaar meel kasta okay way hal oo idahay caaba ku soo dhiga habeenkii marka guriga imaaday waa wacaale miiga qabanay message u diraa WhatsApp kan kala hadlay waxaan dhahay walaalo ma ii soo dhigtay waxagi may ana ku soo dhiga adi ilaa isbuucan ani aan daba taagnaay uu ii soo dhigi diiday okay doo ii soo dhigi diiday wiil walaalkay ah oo wariye ah أنا أسيقنا ماشان ربين إنا كشيء مرة ويلكس وريها سهدنا أو حدا هاي ولا الكيو ورا سكوكة كأنه مركز سامحوا عطاش أساس حد كهر عن هوتيل جزيرة هبين أسكو براني أسيدا سامحوا هاي أسيقنا محيد وإسفهم وين كله وحبادي هاي أفكار هندل كاغا تري مجرته أوكي مركا محيد هاي نينكا سمتها مسوح كلام حدو السؤال هذا لو يري دنا أني حقي أكسوق شو يري ضمت السنوح يري adigona isaguna soo dhigin videogaaga ma laga yaabo in anigana u sameeyo yiri ana ku xiraho dhahay markaas wuxuu yiri marta ina maxay aheedi asaas ku sameeyaa gabadhaas walaashay oo dhahay videogeedii u soo dhigo dhahay page-kaaga maadaama dad badan ay ku xiran yihiin markaas wuxuu sameeyay waayo dhahay markuu dhahay page-kii wuu soo dhigay wallahi kalaam been inaan ku dareyno oo idinkana ay dhaarsaneenin hal xabo been hada ku daray waxaan ku dhahay ilaahay geerideeda cadaab Allah igu dar hada been aan sheegay يعني ما أنت عيل كيسة إقبتي مركو قرالك صوت أو دمير الآنك أو كوسو قري با عيل كيسة إقبتي إنا ماشان كشيغو يعني قفك مركا تكفيلين يسد إنو نحريس لابا أو يهي أو دانيستي يهي أو أن حريس بتب أو لهنتيسة لفيرسانا مركو يهي لو من حريس تكاسم لو ما أبايالو مفانتين أنا وحان أركا مركا إنو محالة دها عيل كيسة إقبتي ساسا وشيغو مركا ويلكي ولالكي وحودا وصوت ديغا فيري خيانتي أو سمي دقيستو والله العظيم إن أنا هذا عطوف تسألها يقول لها بين شيء وحنا سمي وصوت دقي بيتك مركو بيتك صوت دقي أو بيتك مركو صوت دقي أو أسيجن وحي والكي ويلكي وريها أسنا أو أفدي وربي أو سمي يا وأسنا كحلي بو إسلام مركب الدلات كده بيتك إسلام مركب وكتيرة markoo ka tiray markaasuu intuu isoo wacay wiilkii walaalkay uu igu dhahay farxiyo ninkii waa la hadlay dhahay waana soo dhigi anaan arkay ma aragtay markaas waxaan ku dhahay hadda fiirina waa galay markaan saa u sii fiirinayay hatta commentiyaal badan lagama soo qorin dhagtag wuxuu saarnaa adi 4 minutes ma wax xasaas jag wuu ka tiray wuu ka saaray markaas inta si ku noqday waxaan ku dhahay walaalow ninkii wuu ka saaran dhahay ma macquul ma hano dhahay wuu ku laabay
muxuu dhahay maxaa sidaas u sameysay uu yiri xaraam ma ahayno maxaa u sameysay khiyaanadaas markaas uu yiri naagta si aniga isdagaalsanahayno ani asigu isdagaalsana wallahi suma wallahi ani barnaamij kale saas xataa uma sheegin ani laakiin waxaan u sheegay walaalkay inaa ii sameey aan dhahay oo waa ku soo dhigaa beejka intuu ii dhahay oo iiga baxayaan ku dhahay markaas uu yiri anaa kala hadlaa ani barnaamij xataa uma sii faahfaahinay ciilkiisa inta uu qabtaa waxaan ku dhahay markaas waxaan ku dhahay asimaaba dhahay boo isdagaalsanaha ani waxaan dhahay afaara ama ku sheego oo kale ha ninkaas arunta xaqiiqda had inaan ataa ka hadlo waa mugtay ninkaas waxaa dhahay marka koo faristimon as arkeeni oo ugu horeysay habeenka ugu horeysay aan u sheeganay aan dhahay dananka leeyahay markaas oo aan sala galnay meesha oo lagu shaaxeysto oo wuxuu saas ii soo dhahay sida cunugeysa camal inuu soo dhooray markaas aan ku dhahay adeer hooy stop maxaa dhacaan dhahay markaas uu yiri waa salaanti ka mid tahay xabadka in la isgeliyo adeer yaal ya xaqiiqda waa idin sheegay waxba midiga qarin markaas wuxuu ku yiri salaanti kamid tahay in hab leesa siiyo markaas waxaan ku dhahay ajnabiyan kala nahay aniga adiga subxaanallah ilaahan ka magan galay inaana maxaa ahayd lagama yaabo nina ajnabi kala nahay xabadka aan geliyo marka ciilkii oo ii qabi dartiisu maxay ahayd aniga daacada iska waa ku gelinahay mac salaama kula soo tagay ilaa tiyo ii haya muusan soo gelin marka aan walaalkay waxaan u sheegay sidaas jirta dhahay ma fahanti xaaladda marka hadana wallahi oo billaah tallahi inaanan been aan sheegin horta idig ima dhaarsanaysiin maalig jaqal am rumaysan maalig jaqal yani damiir laaba mar rumaysanaay bil inaan nin asila mid am mid as qabiil ku difaaca am mid as saaxiib ay yihiin oo asiga la mid ma laga yaabo in oo rumayst laakiin dadka damiirta la maanta u soo qoray beejka ha ku soo qorin please ha ku soo qorin maxaa la dhahaa mar dabo qoraalkaas gabar walaashiis oo hadda fiiri lama soo guursan waa gabar yar oo ma sha Allah qurux badan maanta danta iyo daruufta maanta kaga soo hadalsiisay qoraalkaas meeshaas ugu soo qortay dadkan ka faa'iideysay istri bal fiiri ya waxa ka keenay waa dhib culays haysta waay ya marka ma ahan in la isku digto marka ma qofka markuu daruuf ay haysato ma ahan in la isku digto ragga Soomaaliyeed waxa ku jira niman eeya oo aan naxariis lahayn oo gabdhaha walaalahooda ugu faa'iideystaan shaqo ma rabtaa duruuf ma ku hayso inta ma ka ugu faa'iideystaan midna waa ku jajeesaa sida catoosho kaleento midna wuxuu ku raadiyaa danta awdatid mid kale ana ku sii haaye ya anna ii fududay ajirto ii fududay shaqo ma rabtaa ha ana ku sii haa ii fududay الله يهديكم ويديك بوي حرق انت صنوعه انت وناكسن كوما جيران لكن ما انت ويلش ورياشه ويلش شقه Soomaalida oo maanta ka dhiidiyay wallahi alcadiim aan ku dhahay inay gabadha garab haysato haysato wiilal haliyay oo damiir lah oo Soomaali maxamed inay ka buuxaan isla mid kastaba aniga diyaar u ah inaan ugu soo jaro maxay to mishaarkayga aniga saas isla haddana shaqo la siiyay alxamdulillah Soomaalida inta badan oo wanaagsan oo qalbiyada wanaagsan ku jiro laakiin kuwa cunsuriyaasha oo eeyaha oo daneystiyaasha oo dantooda ka hormariyay gabdhaha walaalahood oo daruufeysan ya ani hadda ka hor niman maxay idinina waxa igu dhahay ordigana kula xiriirinaya muxuu dhahay ordigana kula xiriirinaa nin Turki uu yiri dhaqaatiirta Turkiga ugu sarsareeyo oo maxaa la dhahaa oo madax u ba arkay videogaaga wuxuu dhahay hal habeen ha iga dhacday gabadhan abaa yaa lagu sameeyay waa aniga fiiri waa wiil Soomaali fiiri waa wiil Soomaali magaciisa hadda waata gabar walaashay u sheegay والله نين كستا oo gabar Soomaaliyeed inuu ku digto rabo gabar Soomaaliyeed inuu sharafteeda inuu wax shilimaad oo ugu faa'iideysto sharafteeda rabo daruufta ay haysato inuu ugu faa'iideysto rabo ama ku jajeeso sida kan oo kaleenta ya والله العظيم إنا إذا لا بيلين بقول ويلو حاك ملايين ويلو حانو جوجو أو قلبي نظيف أو ضمير له أجوجان نينكي قبيل جود فاعل هاي عطش إيكي محاكو ده أسيق لميد أو سيدا سوكالنتا وقول فائدة قبلها ولا على هذا يا سبحان الله سؤال إذا ويدنا إله إذا كوك عبسانيسين خوف بني آدم oo maxaan ku dhahaa gabar hadda nasiiba gabar wiil waaba wiil gabar oo mustaqbal rabto inay social media soo istaagto masana ila hadda ani dad ay ugu caayo atirishada ilinta boqolna waxay iga dhigteen walaashood ee madaxa ii saariyiin afar la saac ila xanuunsadaan marka Soomaalida waxa ku jira dadan damiir lahayn oo aan naxariis lahayn qof bini aadan oo qoraal iska soo qoraay waa duruufeysanahay shaqaha leesiyo waa duruufeysanahay dadan waxa uu ahay hurmud waa duruufeysanahay u soo ilmeenay oo binacmeen iskaga soo istaaga ma jirto
tan xun fiiri gabar xun ma soo qoraysa inay social media xalaasheeda ku shaqeysana shaqaha la sii gabar soo dhehayso naag nadiif waay tan kalmaba idii soo dhehaysa be hoosay ka qaraabanay adeeryaal hoteelada ma aragtay oo liido ku yaal iimaylihii waxa tagaysa ilmaha deeyihiin ilmaheeda meeshaas ka biilaysa ehelkeeda meeshaas weynta labisatay baxda heelada hooye xabada qubsare ugu qabaxta oo hoteelada ugu taga ben waa lacagtooda waa ka qaadanay shinimaanta cid dhan ay biisha cid dhan ay gacan ku haysa waa baxda guriga dhan ay hurmud ka tahay way buuxan malaayiin okay laakiin gabadhi nadiifka ah oo maxaan ku dhahaa damqatay oo ma oo dhahdo walaalaha Soomaaliyeed kaga faa'iideysan inta soo malaayiin oo qof soo galaya marka adeeryaalo gabdhaha Soomaaliyeed oo duruufeysan dhibaatada maxay ahayd anigeena igu dhacday malaayiin mar leedahay shaqada daaribtid fiir anoona aqoon lahayn oo maxaan ku dhahaa leedahay shaqada ugu sareysa ku geena adeere hal habeen maxaa la dhahaa iga dhac marka adeeryaalo sharafta gabdhaha ku ciyaarino daalumiina tihiin raggiina xun waya ragga wanaagsan lama hadlaayo warayaada ilaaha laga cabsado niman isu caynay arkani maxaa social media ana bil diyaar ku leeyahay hoos iga meerso biilan ku siina guri waxaan ku dijinaa dabaq filan ku dijinaa ha waxarta miya baahida aan maanta ina iga faa'iideysatid dhilinimo hada iga soo faa'iideysanaysa luuq ila galwaysa ama hotelka ugu imaaway waxarta inaad iga faa'iideysatid maxaa la dhahaa beben hoos ka meersay labado bilbibile xabad caloosh u gali ama kasii soco lagama yaabo mustaxiil aan ku dhahay mustaxiil gabar kasto kureejo lehna taasay soo noqonaysa marka ninka Catoosh la dhahay ma sameeynaayo ma la dhahay anigoo isku dayay hal video oo page-kiisa ii soo dhig aan dhahay si ay u daawadaan dadkaas maxaa la dhahaa meel kasta u gaari videogeyga ila page-kaaga dad badan ku jira aan soo dhahay waa hal video oo rabay hab inay ugu sii maxaa ka sugaysa marka waraahe ilaaha laga cabsado raggiina Soomaalida xun inta wanaagsan waa dad wanaagsan inta soo caaytameysani waa asigoo soo kaleento waa daalum asigoo kale oo gabdhaha walaalihiis ku jeejeesan waxa idin leeyahay inta xun gabar kasto walaashiis ninkii isku day gabar kale walaashiis inuu daruufta ugu faa'iideysto waxaad ogaataan axmaq kastaba iyo maxaan ku dhahaa daalum kastaba iyo mid kasta gabdhana maxaa jiro oo xogaa iska soo waa jiraan oo xogaa tukulish timir gaari waxa la wuxuu dhahay qareer waa idin salaamaya ani inta aan dhihiro waa intaas wax kale ma idin wado waxaan idin wada barnaamijka Catooshna intaas aan ka hayni inuu damiir laaba yahay ba halkan ka sheegay aad idin salaamaya inta samaha jecel